dhowr sano ka hor waxaan reerkay u kaxeeyey guri aan ku leeyahay baadiyaha oo u dhow harada. Maxaa yeelay waxaan doonayaa arrin ka soo horjeeda nimanka ganacsada maandooriyaha. Saqda dhexe ee habeenkii xaaskayga ayaa i toosisay iyadoo aad u ruxruxday garabkayga. Sheegtay inuu qof garaacay albaabka. Waxaan weydiiyey nafteyda muxuu qof noogu yimid gurigeena baadiyaha saqda dhexe ee habeenka. Si aan u soo fiiriyo albaabka, xaaskayga waxay isku dayday inay sariirta igu hayso. Waxaan u sheegay inaan u baahnayn. Qofkii garaacista albaabka ayuu sii waday, aniguna albaabka ayaan ka furay. Wuxuu ahaa wiil istaagsan. Waxaan weydiiyey maxaad halkan ka samaynaysaa. Kadib wuxuu bilaabay inuu cararo, aniguna waan ka daba cararay. Xaaskaygana wayna daawanaysay. Wuxuu ku ordayay gabaabin, kadib wuu kufay, aniguna waan qabtay. Waxaan weydiiyey maxaad saqda dhexe habeenkii albaabka noogu soo garaacaysaa. Wiilkii wuxuu yidhi maxaa yeelay adeerkeeda igu yiri. Aniguna waan weydiiyey maxay sabab. Wiilkii wuu ka labalabeeyey indhaha si toos ayuu u fiiray, kadibna wuxuu yidhi si aan kuu soo saaray dibadda. Isla markiiba waxaan maqlay xaaskayga oo ku dhawaaqaysa codkayga si horor ah. Dhaqan ayaa gadaashay ka dareemay. Markaan fiirisay waxaan arkay 4 nin oo dadka dila. Waxaan is arkay anigoo ka cararay wiilka. Haddana waxaan arkay xaaskayga oo diyaar garooday inay dagaalanto. Laakiin anaa ku qolashay si ay guriga u gasho, askartana u wacdo. Raggu way ciyaarsanayeen, waxayna ii jireen 15 feet. Waxaan soo galay meel taleefankayga ayaan soo qabsaday. waxaana wacay askarta. Askartu way yimaadeen, waxayna ii sheegeen raggan inay soo dabagaleen gaarigeena. Waxaana ka xanaajiyey warbixintii. Waxay ahaayeen nimankaasi, waxaase dhici lahaa hadday ii wici lahaayeen. Waan ogahay xaaladdu way xumaan lahayd hadday soo gal lahaayeen gurigaan alwaaxda ah. Carruurtayda iyo xaaskayga maxay iga doonayeen aniga. Habeenkii wixii ka dambeeyey marnaba kumaana soo laaban gurigii alwaaxda ah. يا رمضان سلام مرحبا شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيام